asalaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal halkan waa channelka xogta dalka kusoo dhawaada qodobada warka aan idiin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kormeeray xerooyin ciidan oo ku yaala qaybo ka mid ah maamulka Galmudug ganacsiga magaalada Beledweyne oo xirmay fatahaada ka taagan halkaasi oo sii korortay wasiir Sadiq Warfaa iyo waliba duqa Muqdisho oo heshiis kala saxiixday deegaanada maamulka Puntland oo ka bilowday diyaarado buufiya anyaxa qasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaal ka dhacay qaybo ka mid ah duleedka magaalada Gaalkacyo tirada dadka caabuqa COVID-19 ee u geeriyooday maamulka Soomaaliland oo sii korortay guddiga ka hortagga COVID-19 oo ka shiray dabaaldegga Ciidul Fidriga waxaan markale saaxiibayaal ismaqal wanaagsan taariikhda waxa ay ku beegan tahay 19 bisha May ee sanadka 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xalan iminkan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilaabno saaxiibayaal taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawaha Yuusuf Raage oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa kormeer ku tagay dugsiga Harqaboobe ee Gurceel oo kamid ah xariyaha tababarka qaybta 12aad xiradaasi ayaa waxaa ku jira ciidamo muddo ah oo markaasi u socday tababar sare oo lagu barayay xeeladaha dagaalka si loogu diyaar garoobo howlgallada looga saarayo deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan qaybo ka mid ah maamulka Galmudug taliyo Odawaha Yuusuf Raage ayaa ciidamada dugsiga ku jira iyo waliba saraakiishoodaba ku ammaanay dhabar adeega ay muujinayaan xilliga dheer ee tababarka uu socday waxaana uu ballan qaaday in loo dhameystiri doono agabkooda si loogu faa'iideysto aqoontooda ciidamadan ayaa waxaa loo diyaariyay inay markaasi la dagaalamaan Al-Shabaabka ka jooga qaybo ka mid ah maamulka Galmudug waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu sheegay in dhowaan ciidamadaasi Al-Shabaab goobaha ay ka joogaan Galmudug ay weeraro kala duwan ay ku soo qaadi doonaan geesta kale saaxiibayaal haddii aynu eegno ganacsiga magaalada Beledweyne waxaa lagu soo waramayaa inay xirmeen fatahaada webiga Shabeelle uu geysanayeen waa ay sii kordhaysaa dadka weli ku haray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee aan ka barakacin ayaa waxa ay ka hadleen saameynta uu ku reebay fatahaada webiga Shabeelle oo ka geystay xaafadaha gudaha magaalada Beledweyne webiga ayaa ku fatahay inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne sida Xaawataako, Kooshin, Dhagax Jabis iyo waliba xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada Beledweyne waxaan dadka ay markaasi hoy ka dhigteen guryo cooshado ka samaysan oo ku yaala deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka tirsan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen inay saameyn ballaaran oo ku yeeshay fatahaada sanadkiiba tiro 2 jeer oo ku soo laabtay magaalada Beledweyne kaasi oo sababay barakac aad iyo aad u xoog badan sidoo kale waxa ay sheegeen in ay saameynta ugu daran ay tahay in wax ganacsi ah uusan ka jirin magaalada Beledweyne sidoo kalena dadka deegaanka Ceel Jaalle ay u barakaceen inay haysan waxyaabo kala duwan oo noloshooda markaasi maareynaya muddooyinkii ugu dambeeyay webiga Shabeelle ayaa fatahaad kala duwan waxa uu ka geysanayay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne way saaxiibayaal geesta kale haddii aynu eegno wasiir Sadiq Warfaa iyo duqa magaalada Muqdisho oo heshiis kala saxiixday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo waliba wasiirka shaqada iyo waliba arrimaha bulshada xildhibaan Sadiq Warfaa ayaa maanta Muqdisho kula saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka danyarta ee ku nool gudaha caasimadda Muqdisho wasiirka shaqada iyo waliba arrimaha bulshada Sadiq Warfaa oo duqa Muqdisho ku soo dhaweeyay xafiiskiisa ayaa sheegay in mashruucan la soo marsiiyay wasaaradda shaqada iyo waliba arrimaha bulshada oo uu maanta ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir si loogu taakuleeyo dadka aadka markaasi ugu nugul ee gobolka Banaadir ku nool aan shaqaysan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ka mahadceliyay soo dhaweynta wasiirka ayaa sheegay in mashruucan wasaaradda ay ku wareejisay ayna ku wareejin doonaan dadkii loogu talagalay wasaaradda shaqada ayaa horey u daafurtay mashruuc loogu magac daray Baxnaano kaas oo la sheegay in lacago caawinaha lagu siiyay dad markaasi rayid ah yeeshay wali aan la soo bandhigin dadka markaasi rayidka oo lacagta la siiyay wayahay saaxiibayaal markan haddii aynu eegno wararka ku saabsan ee maamulka Puntland waxaa lagu soo waramayaa diyaarado buufiyaha anyaxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa in deegaanada maamulka Puntland ay ka bilowdeen diyaaradahan oo dhawaan dowladda Soomaaliya ay maamulka Puntland ku wareejisay ayaa waxa ay buufiyeen anyax fara badan waxaana ay ka bilaabeen tuulooyin markaasi hoos yimaada gobolka Nugaal deegaanka ay buufinta ka bilaabeen ayaa waxaa toddobaadadii la soo dhaafay waxaa dhibaato markaasi ku hayay anyax fara badan waxaan dadka deegaankaasi ay sheegeen
in beero badan ay baabi'iyeen islamarkaana ay cabasho u gudbinayaan madaxda maamulka Puntland. Diyaaradaha buufinta ka bilowday deegaanada maamulka Puntland oo ah laba ka mid ah kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopter-ka ayaa waxaa 15 bishan ay gaareen magaalada Garowe, waxaana mashruucan lagu buufinayo anyaxa si wadajir ah u maalgeliyay hay'adaha lagu magacaabo VAWO iyo waliba hay'adda lagu magacaabo USAID, waxaana fulinaysa dowladda federaalka Soomaaliya. Buufinta anyaxa ee deegaanada ee maamulka Puntland ka tirsanaya waxay socon doonaan muddo 10 cisho ah, waxaana sidoo kale ay buufinta ay ka sameyn doonaan deegaanada maamulka Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland iyo waliba maamulka Somaliland. Dhinaca kale saaxiibayaal, haddii aynu eegno khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay dowladka magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo waramayaa. Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo laba maleeshiyo beeleed maanta ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo Taaroge duleedka waqooyi magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Labada maleeshiyo beeleed ee ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo waliba Puntland ayaa warar kala duwan waxa ay ka soo baxayaan sidii ay ku bilowday dagaalka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadka ee ka soo jeeda dhinaca Galmudug ay weerarkaasi ay qaadeen. Wararka la helay waxay sheegayaan in dagaalkii dhexmaray labada maleeshiyo beeleed ay ku geeriyoodeen 2 ruux, halka 5 kalena lagu soo waramayo in dhaawac adag uu soo gaaray. Maamulada Puntland iyo waliba Galmudug weli wax warar kama soo saarin dagaalka labada maleeshiyo beeleed oo ku dhexmaray deegaanka lagu magacaabo Taaroge ee duleedka magaalada Gaalkacyo, waxaana wararka aynu helayno ay sheegayaan in iminkan xaaladdu ay degan tahay. Ciidamada maamulka Puntland iyo waliba kuwa maamulka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa inay markaasi gaareen goobta dagaalka uu ka dhacay, waxaana lagu soo waramayaa in iminkanba ciidamada ay kala joogaan. Deegaano dhowr ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka Galmudug ka tirsan ayaa lagu wada dagaalamayay, waxaana inta badan ku dagaalamayay dad markaasi deegaana kuwaasi oo inta badan isku haysta dul daaqsimeed oo ku yaala duleedka magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ka tirsan. Waayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno tirada dadka caabuqa COVID-19 ee maamulka Somaliland u geeriyooday waxaa lagu soo waramayaa inay sii kordhayaan. Maamulka Somaliland ayaa maanta shaacisay kiisas hor leh oo cudurka COVID-19 oo laga helay deegaanadeeda iyo waliba qofkii 10aad ee cudurka ugu dhintay maamulka Somaliland tan iyo markii uu bilowday caabuqa markaa COVID-19. Guddiga wacyigelinta iyo waliba ka hortagga COVID-19 u qaabilsan maamulka Somaliland ayaa sheegay in la baaray 35 ruux oo loogu shakisnaa cudurka COVID-19 balse cudurka laga helay 8 qof ka mid ah ee markaasi lagu soo waramayo. Dadka cudurka laga helay ayaa guddiga waxa ay sheegeen inay joogaan hal ka mid ah magaalada Hargeysa, 5 qofna ay joogaan magaalada Boorama iyo waliba 2 qof ay joogaan magaalada Burco, waxaana dadka cudurka laga helay ay yihiin kuwa aan ka bixin deegaanada maamulka Somaliland. Ugu dambeyntii guddiga waxa ay sheegeen in qof qabay cudurka oo laga keenay magaalada Burco ay ugu dhintay magaalada Hargeysa, kaasi oo noqonaya qofkii 10aad ee maamulka Somaliland uu geeriyooday caabuqa markaa COVID-19. Tirada guud ee dadka laga helay cudurka COVID-19 deegaanada maamulka Somaliland iminkan waxa ay gaaraysaa 129 ruux, halka 9 qofna ay u geeriyoodeen. Waayahay saaxiibayaal, maamulka Puntland haddii aynu saaxiibayaal eegno weli khilaaf xooggan ayaa waxa u dhaxeeya hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waliba ku-xigeenkiisa, waxaana lagu soo waramayaa in warbaahinada maamulka Puntland ka howlgashay ay saameeyeen arrintan. Waxaa weli taagan khilaaf aan weli si sharci ah u soo shaacbixin, kaasi oo u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waliba ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaashe. Khilaafkan ayaa ka bilowday kadib markii madaxweynaha maamulka Puntland uu xilka ka qaaday taliye ku-xigeenka ciidamada ilaalada madaxtooyada isla markaana uu mid kale magacaabay. Ha yeeshee madaxweyne ku-xigeenka ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xilka qaadistaasi aan waxba ka jirin, isla markaana gaashaale sare Cabdiqani Maxamed Cabdi uu yahay taliye ku-xigeenka ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland. Khilaafkan ayaa sidoo kale waxa uu saameeyay warbaahinta maamulka Puntland iyo waliba barta Facebook ee madaxtooyada maamulka Puntland, waxaana uu madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland fariin tacsi ah oo u diray gudoomiyaha gobolka Bari qaraxa lagu dilay la soo dhigay barta Facebook ee telefishinka maamulka Puntland, balse 5 daqiiqo kadib markaasi laga saaray. Si kastaba ha ahaatee, khilaafka madaxweynaha maamulka Puntland iyo waliba ku-xigeenkiisa ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu maalmihii ugu dambeeyay ka socday qaybo ka mid ah maamulka Puntland. Waayahay saaxiibayaal, ugu dambeyntii guddiga ka hortagga COVID-19 waxaa lagu soo waramayaa inay ka shireen dabaaldegga Ciidul Fidriga. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay shirka guddiga qaran ee xakamaynta COVID-19 kaasi oo habeen walba markaasi mareegtada internetka ah
inta badan lagu qabto. Shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay qorsho ay bulshada maalmaha ciidda ugu damaashaadi karaan farxadda iyada oo la joogteynayo tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19. Qorshaha ayaa waxaa ka mid ah sida kala fogaanshaha iyo weliba dhammaan talooyinka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka qaybta ka hortagga safmarka COVID-19 oo kiisas ka mid ah laga helay gudaha dalkeena Soomaaliya. Iminkan ku dhawaad 1300 ayaa lagu soo waramayaa dadka qaba caabuqa COVID-19. guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waan idin anigo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa la socodsiinay saaxiibayaal warkiisa xigaan oo la kulanti